taliska nabad sugidda ee Soomaaliya oo howlo baaritaan ka sameeyay qaybo kamid ah wadooyinka soo gala magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay baaritaanada halka ay ka fuliyeen warbixinta muurta ku saabsan waxay noo soo dirtay wariyahayaga Iqra Cabdullaahi. nabad sugidda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta warbaahinta ugu warbixisay howlgallo baaritaan ah oo ay maanta ka sameeyeen kontaroolada magaalada laga soo galo iyo gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle State. waxaana baaritaankan lagu baarayay dadka iyo gaadiidka soo galayo magaalada Jowhar kontaroolada laga soo galo magaalada Jowhar ee dhinacyada waqooyi iyo koonfurta si loo xaqiijiyo amniga caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. taliyaha nabad sugidda gobolka Shabeellaha Dhexe Gaashaale Cabduqaadir Cabdullaahi Xaayow ayaa bahda warbaahinta ugu warbixiyay howlgallada ay maanta ay ka sameeyeen gudaha magaalada Jowhar. howlgaladana saaka mar walba howlgalada waa sameeyna laakiin howlgaladan waxay kamid yihiin waxyaabaha howlgalada daba joogo lagu ilaalinayo ammaanka guud ahaan gobolkan ama maamul goboleedkan haddana si gaar ah waxay u soo khuseeyeen howlaha shirka lagama ilaalin karo goobta uu ka dhacayo kaliya waa in laga ilaaliyaa ka banaanka dadka iyo bulshada meelaha ay joogaan ama magaalooyinka laga soo galo jaboontiyada ama ha noqoto bulshada is socodkooda in la socdo lana xaqiijiyo howlaha amni taas ay hayeen ujeedada howlgallada saakan sameeyay guud ahaan ciidamada ammaanku waxay ku amaanan yihiin shirkan waxayna ku guuleysteen hawshan inay wada qabtaan si guud ah sababtoo ah far kaligeed forma noqdo laakiin doorka ay ku leedahay ciidanka nisa ama ciidanka nabad sugidda waxay ku leeyihiin xaqiijinta xarumaha shirku ka dhacaya ammaankooda iyo xarumaha ay degan tahay martidu iyo wufuuddu xaqiijinta iyo soo dejinta wufuudda imaanaysay heer federaal iyo heer maamul goboleedba hadday ahaa lahayd midda ku imaado dhulka oo dhulka soo marto iyo hadday ahaa lahayd midda diyaarad ku soo degta oo iyadana laga keenay intaas ayay doorkooda khaaska ah iyo inay maamulaan amniga xarumaha shirka oo ka dhaci lahay intaas ayay doorkeen waa ka sameeyay sida ogtahay wariyaashu mar walba nala joogaan marti nagama tihiin waxaad ogtahay inaan u baxnay meelo fogfog ee kamid tahay Biyacado Miirtuugo inaan tagnay Mahaday meel oo hadda Jowhar iyo xarunta shirka inaan ku arkeen laga yaabo inaad adigana raacday marka kuma ekin magaalada Jowhar oo kaliya howlgalku waa dheer yahay laakiin shirka wuxuu ka dhacaa magaalada Jowhar. Iqra Cabdullaahi Raage iqraladan tifiga caalamiga Soomaali Cable xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle State magaalada Jowhar.